السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة السياسة أكاديمي قبل قبرت حساباتك قاران مايكروسوفت أكسل iyo Google Sheets maanta waxaan baran doonaa cashar muhiim ah waxaan ku baran doonaa qaabka loo xisaabiyo saacadihii guud ee aad shaqayday tusaale ahaan waxaad tihiin team ama koox loo diray hal projecti lana siiyey waqti cayiman soo marka si teamku aysan isugu dhex darin shaqooyinka ay qabteen loona ogaado qof walba xilliga uu shaqeeyay maalin taariikhda uu shaqeeyay iyo weliba saacadaha uu shaqeeyay waxaas badanaa la sameeyaa ama ay shirkaduhu sameeyaan in uu sameeyaan waxa la yiraahdo tracking warqad ay ku talagarayaan oo qof walba uu ku qorayo magaciisa iyo taariikhda uu shaqeeyay lagu qorayo iyo weliba saacadda uu shaqada soo galay iyo xilliga uu ka baxay si hadhow loo xisaabiyo saacadaha guud qof walba uu shaqeeyay oo ka mid ah projectkaas inta badan xitaa waxaa loo isticmaalaa xaadirinta kaleeto markii qofku shaqada uu soo galayo inta badan albaabada waxaa ku dhegan system loogu talagalay in suulka la saaro si uu diiwaan geliyo qof walba xilliga uu shaqada soo galay xilliga uu ka baxayna sidoo kale suulka saaro si loo ogaado xilliga uu ka baxay loona xisaabiyo saacadaha uu shaqada ku jiray iyo maalmaha uu joogay xilliyada uu shaqada soo galay iyo su'aalo fara badan looga jawaabo anagoo waqti badan luminayn waxaan u guda galaynaa casharka insha Allah waxaan ku sameyn doonaa hadii la yiraahdo daatadan hor taala aad bay u yartay daatadan waayo waa tusaale on kaliya baan ku sameynayaa ma ahan inaan sameynayo project sax ah laakiin waxaan si oo kaliya qaabka aad u sameyn lahaydeen kulli technology adikana ugu dabaqi doontiin knowledge iyo qaabka project aad u isticmaalaysan ay ku xiran tahay intaan marka hore u guda galin waxaan sameyn doonaa table ayaan u bedeli doonaa حدير مركا highlight سارة حلي مركا control T أما أضو highlight سارين أو دول تاجن ميت كمية cell كداتا أي قرنت هاي at control T دي كرتا كدب تاقدا يروكو سارة يا حتى هذا مركا أوكي أنت بدنا نيجي حاسق هذا filter كا مركا سان سمايدو حتى أنا داتا تاب كان داتا انتجينا وحالنا مركا from table or range باور كويري إنه صفرية تقديسه aad way fududahay marka kan soo furo halkan waxaan ka bedeli doonaa hadii la yiraahdo waxaan ka dhigi doonaa maya time kaliya ka dhigi doonaa insha Allah maadaama uu taam yahay taariikhda aan ka jiri doonaa afwan waa taariikh soo marka saacada aan ka jiri doonaa dheedan ka dhigi doonaa hadii la yiraahdo halkaas oo jeedin waxa hal column ku wada qoran xilliga la bilaabay ama laga yaabo projectigu inuusan ahayn oo kaliya yahay in la soo xaadiro goobta shaqada ee projectaas lagu qaban karo meel kasta inta xaafada kasta goobaha caadiga ah ee la sugu imaado sida kafeeyada kaleeto meelaha jawiga degan lagu shaqeyn karo soo marka projectigan ma ahan project laga shaqeynayo xarunta shirkadu lahayd ee waa project banaana ama freelancer ahaan ah marka hadda Axmed oo kale salaan labada bish saddexaad 2022 wuxuu soo shaqo galay ama projectkan bilaabay shaqadiisa 6 subaxnimo 6 aroornimo wuxuuna shaqadan marjan joojiyay hal saac iyo bar ama 7 iyo barka aroornimo soo marka waxa uu jeedin inuu shaqeynayay hal saac iyo bar oo kaliya marka waxaan sameyn doonaa insha Allah waan kala saari doonaa waxaan ka dhigi doonaa xilliga start time iyo end time aan ka dhigi doonaa insha Allah sata u sameeyno waxaan dhigi doonaa marka add column aan ku diri doonaa cusub kadib waxaan leeyahay marka extract waxaan leeyahay marka after the delimiterka halkaan noo saaraya delimiterka wuxuu leeyahay delimiterka ku kala qaybiya hadda ujeedin waxa uu ka qaybsan dash ama xariiqin yar ayaa u dhaxayda labada saacadood laakiin waxa ku jira laba space oo kale ayaa ku jira soo marka space iska ilaali soo waxaan leeyahay marka space qatalka imaw waxaan leeyahay space kadib waxaan leeyahay dash kadib space kadib waxaan leeyahay okay hadda ujeedin marka wuxuu ka saaray qaybtii dambe ama saacadii shaqada dhammeeyay ayuu goon u dhigay haddana sidoo kale waxaan sameyn doonaa column goon waxaan ku sameyn doonaa xilliga shaqada uu bilaabay soo isla meesha aan aadayna waxaan isla meesha aadayna waxaan leenahay extract kadibna waxaan leenahay text before delimiterka text ka horeeya column cusub ku daabac marka waa space dash space kale kadib waxaad leedahay okay hadda marka waa iska dileedayna ma baahnin remove aan iska leenahay kan waxa leena marka waa end time waa inaad ku qortaa halkan waxa ku qortaa start time shiftiga qabo ee kala wareeji maadaama starka la hormarnayo waxa u bedeshaa time ama waqti salaanta u jeedin halkan waa ABC waxa u malayaa qoraal
so marka qoraalkaas anaga ma doonayno waxaan u doonayna inuu ka dhigo saacad aan doqtaas u bedelnay sidoo kale midaan u bedel time ka dhig markaa saas samaydo had marka waxaan samayn karnaa inaan kala jarno waxaan hor doorahaynaa xilligii oo shaqada dhameeyay qofkaas ama tiimka ka mid ah waxaan ku xijinaa marka anagoo control hayna ayaa waxaan doorahaynaa start timeka ama xilliga uu shaqada bilaabay kadibna waxaan leenahay marka time waxaan leenahay marka subtract ama kala jar halkan soo jeedin waxaa noogu soo qoray saacad aan bedelaynaa duration ka dhigaynaa waxaan ka dhigaynaa total hours aan dooranaa insha Allah marka total kan soo jeedin هذا هو point هل ساعة يبر لبا ساعة لبا ساعة يبر لبا ساعة يبر لمبر نظيف يعني هنلاقي سو marka waxaan iska dilay doonaa meelo badan dilay doonaa dilay yiraahdo start time key end time key duration key saddexdaan baan u baahnin waa iska dilay karnaa so marka highlight oo saar remove dheh halka marka soo jeedin qof walba waxa waa Axmed taariikhda oo shaqada shaqeeyay iyo inta saacad uu shaqeeyay hal saac bar soo jeedin marka halka waxaan leenahay marka home kan tageynaa close and load and existing worksheet before table kadib waxaan leenahay marka halkan noogu daawac ayaan leenahay okay halkan datada noogu daawac hadii la yiraahdo marka halka soo jeedid filter ka saar control L okay hadda maadaama ogaanay maalin kasta iyo qof walba saacada uu shaqeeyay ama inta saacadood uu shaqeeyay hadda waxaan fiiri doonaa inta saacadood ee totalka projectkan dhamaantiis oo qof walba shaqeeyay waxaan isticmaali doonaa qaacida la yiraahdo sum ifs sum range xageen isku darnaa halkaan isku darinaa ama saacadihii qofka uu shaqeeyay criteria range-dii halkaan team memberka aan ku xisaabi doonaa range-ga criteria-da wanta waxay tahay Axmed imisoo uu shaqeeyay ama imis saacad uu shaqeeyay soo jeedin Axmed wuxuu shaqeeyay 7 saacadood iyo bar ayuu shaqeeyay hadan hoos daraag u sameeyay soo jeedin qof walba oo sabaxaya uu shaqeeyay Axmed kulli taba saacada ugu yar shaqeeyay 7 saac bar uu shaqeeyay halka saacadii ay shaqeysay 12 saacadood halka Jamaal uu shaqeeyay 15 saacadood marka waxaan filaynaa ka faa'iiday 10 kan